caqabadaha ugu waaweyn ee haddaan nahay dadka industrigan ku jirana qabsada waxaa ka mid ah in aan wadankii lahayn wax soo saar dhinaca cuntada kow in dadka wadanka wax keena ee soo dejiya kow ayna ahayn dad aqoonteedii leh laba ay yacni dee una jirin consistent suppliers oo wax laga qaato oo og xaaladda wadanka waxa loo baahan yahay baahida loo qabo so waxa keenaysa aqoon darro iyo is-abaabul la'aan faa'iidooyinka leedahay waxa weeye waxa ka mid ah wadankan restaurant industry ama hawshaan dadka ku jira yani meel fiican lagama gaarin waa industry hadda soo koraya on aad hadda aad loo gelin walow ay maqaaxiyaha badan yihiin laakiin maqaaxiyaha sida fiican u shaqeeya ama aqoonteedii dadka leh maadaama ay aad u yar yihiin waxa weeye waa business hadda waa sector hadda aad u soo kacaya dhaqaale ahaanna faa'iido badan leh saameyn ahaanna faa'iido badan leh marka waxa weeye faa'iidadiisa iyo caqabadiisa labaduba way badan yihiin laakiin waxa aad u badan caqabadiisa waxaanan aaminsanahay hadday soo bataan ay wadanka ku soo bataan dadka xirfadan bartay sida iyadoo kale in ay wadanka wax badan iska bedeli doonaan ay caqabaduhu hoos u degi doonaan faa'iidooyinkana kordhi doonaan meeshayadu waxaan leenahay studio kow iyo meel dadka lagu tababaro sababtaan u furnayna waxa weeye maadaama aqoontan ama xirfadan dadka leh ay aad u yar yihiin inaan dadkaygana uga faa'iideyno oon dadkana wixii jecel barashadeeda u fududeyno intii karaankayga ah xataa dalka dibaddiisa dadkii xiiseynaya inaan ku xidhno waddada saxda ah intay halkan joogaanna ay waxan si fiican u sii bartaan meesheeda trainingayga dadka maqaaxiyaha personal dadkii naftooda rabeen u bartaan iyo familiyadooda intuba waa diyaar